الرحمن الرحيم. هذا الكفتن ينكفر يا إذن كرهالي كل أنتي نبدأ وأفحرنتهن قارن وأفرنيه مركا وحالي يرقفكم مركو دع مرات مدعو كوا أفك فرن مهرو ودعي مرك مسك جيسين ماذا كبرتي الحمد لله الحمد لله قدونك لبض قولي بارلمانك حبناها بارلمانك أقل كسرة يو حبناها بارلمانك قولها شعبك رئيس وزارها يو حبناها قولها وزير هذا قدوميها محكمة السرة حريريها قرنك قدوميها قدك دور شوينك مدح بنان قدوميها قبل كبنادر تغيياشا عيدك قلب كسيده قدوميها بارلمانك دول قبلتك قلمدو قدوميها بارلمانك دول قبلتك هيرشبيل بعض الصحافة يا دمان مرتي شرفتك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال مروين وحا شرفية هنا مانتا هو تاريخ تهاي اللحظة أنا هذا الكلام ماشي سي احترام لنا شو يسلم سي احترام لنا مدحوينه وكادي حلبان نحب دورياشا سي احترام لنا شو يسلم مدحوينه هلا هذا يعني كجرها لجرينينا سيدا إذا مقطع بوق أيها كذا شيء كلن كبرلمانك أو سعودي إسلام كان أي هذا سعودي قد بدأ وشيدين اليوم مدحوينها دولة فدرال كاي الصومالية أيضا مدحوينه أودي سلامته بس هذا سيدا مقطع بوق أيها قابته كذا شيء أنت قد بدأ مدحوينها أودي وحدعي فرنبي يوله وحياة كله وحنا موقدا حلبانا كترسن برلمانك الصومالية oo kor gacmaha u taagtaagay laakiin codadka qaybta si toos ah ayuu uga sida u jeedaan hadda waxa isbilowday gacan qaad sida xiroosaadku qabo xildhibaanada qaar kamid ah iyo waliba dad kale oo doonaya isku tiirsaday waad arkaysan xildhibaanada ayaa hadda waxa ay bilaabeen xaalada loo dejiyo in meesha astaanta iyo ay qaadaan kooda iyo hadda socota
goobta fowdada culus ayaa ka socota lama garanayo waxaa sababay qaar ka mid a xildhibaanada maadaama codkooda toos uusan noo soo ayaa waxay isdayayaan in la dejiyo xaaladda oo waxaa socda dadaalo waxaana muuqanaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta goobta ma cadday kara inay xildhibaano yihiin oo isgacan qaadaya oo qaarkood kuwa kale gacmaha ay kor iskugu taagtaagayaan in la fowdeeyey khudbadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu jeedinayay kuraasta ayaan u jeednaa oo qaar ka mid a xildhibaanada iyo weliba mudanayaasha meesha fadhiya ay kor u qaadayaan sida muuqatana khudbaddii madaxweynuhu uu jeedinayay hadda waxaa muuqata in arbushaad iyo weliba fowdo la geliyey laakiin sababaha keenay ma garanayno madaxweynuhu waxa uu waday salaanta uu u jeedinayay mas-uuliyiinta goobta kasoo qayb galay si inkastoo oo madaxweynaha qaabka salaanta uu soo gudbiyey qaar ka mid ah ay muuqatay marka loo fiiriyo nidaamka in xoogaa madaxweynuhu uu kala hormariyey qaarna uu ka tegey ousan salaantii ousan salaamin ma ogi ilaa iyo hadda lama cadday karo sababta fowdada dhalisa inay istaa tahay iyo in wax kale ay jiraan balse waxaa muuqata in ay goobta fowda ka dhalatay xildhibaanada iyo xaaladda in la dejiyo ayaa la isku dayayaa laakiin waxaa muuqata ilaa iyo hadda in aan lagu guulaysan in si rasmi ah hawsheena gudano codka madaxweynaha ayaa hadda microfonka la siiyey laakiin dib ayaa looga xiray waxaan ogaan doonaa bal xaaladdu sida ay noqoto si toosa ayaan idinkugu soo gudbi doonaa sidaad ujeedaanna weli waxaa muuqda fowdada waxaa la isku dayayaa xaaladda in la dejiyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kale ayaa doonaya inay ka qayb qaataan bal sidii fadhiga ay dadka ugu laabo lahaayeen oo fowdada loo jooji lahaa ma cadda sababta laakiin waan ogaan doonaa bal waxaa keenay in goobta fowdadu ay ka dhalato oo ay sidan xaaladda isku bedesho laakiin barnaamijku waa live sida aad u wada jeedaan waxaana muuqanaya in hadda la isku dayayo weli in arrinta la dejiyo oo dad ay dadaal wadaan laakiin waxaad u malaysaa dhinaca kale in xildhibaanadii iyo sheeko ay qaar bilaabeen qaarkood ay kaftamayaan qaar ay isku hanjabayaan ama waxaa laga codsanaya xildhibaanada ay fariistaan oo fadhiga ay ku laabtaan oo ay nidaamka ilaaliyaan laakiin sida muuqata qaar ayaa weli ka dhega adeegaya in ay fariistaan waxaa ii muuqda xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xildhibaanada baarlamaanka oo fadhiga ka kacay isla markaana xildhibaan ka mid a gabdhaha ayaa hadda waxa ay u gacan qaadaysaa xildhibaan kale iima muuqdaan wejigoodu si rasmi ah maadaama qalabka looga hortago coronaviruska ay xiran yihiin marka kuwa ay yihiin ma cadday karno ilaa iyo hadda laakiin waxaa muuqata in si rasmiya loo fowdeeyey khudbaddii madaxweynuhu uu jeedinayay si toosa ayaad noola socotaan waxaan eegi doonaa bal xaaladda iyo sida ay noqoto iyo waxa ay ku dambayso laakiin waa idinka raali gelinaynaa codadka haddii aadna wada maqli karin maadaama liveka meesha uu nooga imaanayo tooska ah codka la xiray si hadallo qadaf ah ama meelka dhaca aysan u bixin oo sidaas daraaddeed ay loo sameeyey laakiin waxaa dad laga codsanayaa xildhibaanada in ay fariistaan firimbi ayaa la maqlayaa oo ah firimbigii marka hore sheekadu ay ku bilaabatay waana arrin aada u foolxun oo u muuqata in hadda khudbaddii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la fowdeeyey waxaan u jeedaa mas-uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaan ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta oo qayb ka ah dadka doonaya in xaaladda la dejiyo oo fowdada la joojiyo xildhibaanada inta ugu badan waxa ay isku dayayaan in bal arrinta la dejiyo oo xildhibaankii codka bilaabay dhinaciisa ayaa ay arrinta u badan tahay in la isku dayayo bal in xaaladda la dejiyo sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo sportiga qadiijo ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaan filayaa inuu qofkaasi yahay ayaa ii muuqata sidoo kale oo doonaysa in arrinta ay qayb ka qaadato sidii lagu deji lahaa xildhibaanada kale ha fadhiistaan fadlan xildhibaanada kale ayaa laga codsanayaa inay fadhiistaan marka laga soo tago xildhibaanada arrinta bilaabay
oo ilaa iyo hadda aysan kala caddayn sababta rasmiga ah maadaama barnaamijka oo live yahay laakiin qaybaha dambe waxaan ku ogaa doonaa bal waxaa keenaya in xildhibaanku uu kaco iyo sababta keentay in fowdadan ay bilaabato barnaamijka weli waa live waana xafladda furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa socotay khudbadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaad wada maqlaysaan xilliga ayaa goobta weli ka dhacay xildhibaan kastoo hadda taagan wuxuu la mid yahay xildhibaan qaylinaya fadlan xildhibaan walba ha fadhiiso waxaan isticmaalaynaa qodobkeena xeeroosaadka qodobka 10aad baan isticmaalaynaa qof walba oo arrin fowdaa ku jira waxaan ula dhaqmaynaa xeerka sida uu qabo waxaana qof walba uu mudan yahay wixii uu mutaystay inuu qaato fadlan qof walba ha fadhiista dadka kale taagan ha fadhiistaan xildhibaanka dadka taagan ha fadhiistaan oo saari karo awood adeegsan karo fadhiista fadlan wasiir fadlan waxaa bilaabatay in xildhibaanada qaar kamid ay isku gacan qaadaan sida idiin muuqata gabar kamid xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka ah ayaa waxa ay u gacan qaadaysaa mid kale oo kamid ah xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sida idiin muuqata garabka dambe ee wasiir Qadiijo ay gabadhaasi hadda ay fadhisay waana ka xunahay qadka sidoo kale internetka ee magaalada Muqdisho oo aad u liita aad ayaan kaga raali gelinaynaa xildhibaanada wajiyadooda si fiican looma kala garanayo maadaama qalabka coronaviruska looga hortago ay wada xiran yihiin intooda ugu badan marka lama garanayo in xafladdu sidan kusoo gabagaboobi doonto oo khudbadda madaxweynaha siyaabo kale baarlamaanka loogu soo gudbi doono iyo in lagu guuleysan doono in la fariisiyo xildhibaanada fowdada wada oo sidaasina xafladda iyo furitaanka khudbadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kusii socon doonto laakiin waxaan aad idinkaga raali gelinaynaa qadka internetka oo sida idin muuqata uu aad u culus yahay magaalada Muqdisho muuqaalkana si toos ah ayaad u daawanaysaan ilaa hadda nooma kala cadda bal waxa soconaya iyo sida ay yihiin laakiin waa arrin aad u fool xun in istaago madaxweynaha kal fadhiga baarlamaanka inuu furana sidaad codka ka maqlaysaan waxaa la jebinayaa qodob ka mid ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka codkiisa waxaan leenahay fariista xeroosaadaad leedihiin هل فريستو هل احترامه مدحوينها خطبتيسا ودستوري هدان دستورك احترامه انه مدحوينها هل احترامه gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu sheegayaa in arintan aysan ahayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laakiin ay tahay arrin dastuuri ah oo loo baahan yahay in dastuuriga baarlamaanka jamhuuriyadda sida daradeedna ay tahay in federaalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay dhageystaan soo dhow madaxweyne mudanayaal marwooyin laba qof baa 300 iyo 29 afduubtay maanta waxa sharafiya in maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha Juun 2020 aan si rasmi ah u furo kal fadhigi toddobaad ee labada gole ee baarlamaanka
وما سنتين جمهورية فدرالك الصومالية أنا قدنا يا واجبات كي دستوري قا وحن مركه هو أنا مهد علنا يا ما حد سكره إلهي هل كان سوق هاي كائن مانتا ونوسور تقليه إنه شركة ناقب صومه يو إلهي نجسم تبحي عابقة كورونا في دوني دوران يدو اللي في لاي إني صوماليا وأن هيدل رنتي آد نقول إن دباتوين أن كلا كل منه إلهي وما حد سكرها أو نجسم تبحي وليس كيسان نجقاضي الله نحرسته dadkii intii ay u dhintay caabuqaas inta u jiifta oo u xanuunsan ilaahay ha ka kiciyo sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jannadiis siiyo kulligiinna samar iyo iimaan oo idinka siiyo waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka ee ka hortagga cudurkan COVID-19 uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha iyo howlwadeenadii iyo bahda caafimaadka oo xaqiiqatan qabtay shaqo dhaxal gal ah waxaa xusid mudan inaan dalka aan ku soo celinay in ka badan 1,200 oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dibadda cudurkan dartiisa oo Ilaahayna nagu guuleeyay waxaan u mahadcelinayaa dawladda Turkiga oo xaqiiqatan maanta ka horma imaan dhismahan noogu deeqday aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii 3 sano iyo dhowrka bilood ahaa ee idinkala dhaxaysay hay'adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan qirayaa sida uu sheegeen labada gudoomiye la idinku amaanaya inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyay shuruuc aad iyo aad u fara badan aad ku sifowdeen wax soo saar inaad aheedeen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa waliba idinkoo ahaa laba gole inta badan Soomaali khilaafaad kama dhamaado marka aad iyo aad yaan runtii idinka mahadcelinaya si kastaba ha ahaato wali waxa inoo dhiman inaan dhamaystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeena qarannimo mudanayaal iyo marwooyin waxa xaqiiqo ah in ay dawladdan tahay oo markii ugu horeysayna oo la doortayna aan bilaawno inaan raahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dawladdii shacabka waa xaqiiqo taas waxaa daliil u ah in maanta 50 sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awood dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan si ay u doortaan xisbiga
iyo dowladda ay doonayaan si ay shacabka Soomaaliyeed u doortaan siday shacabka Soomaaliyeed u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan waxaa maanta aad u fadhidaan aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaarno aan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda inay dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jiri jiray way dhammaatay waxaan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo si xor ah ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyay shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharaf kale bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno xirtaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen gudoomiyayaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyna inay u dhacdo doorashada waxaa intaas dheer gudoomiyayaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u cadeeyay mar waraysiga laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyay sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29kii bishii hadda la soo dhaafay ayuu ra'iisul wasaaraha si ku celisa haddana ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu cadeeyay dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay'adaha kale ee khusayso aan ku dhiirigelinayaa ku adkeenaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaaliya iyo wadamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo
mudanayaal iyo marwooyin waxaa la socotaan sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ee ka dhici jiray qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaran jabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwaneyd tii ka horeysay marka loo eego ka qaybgalka bulshadeena Soomaaliyeed markasta talaabo ayaanu hore u qaadinay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa oo way caddahay inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo 50 sano ah kadib markii ugu horeysay ay sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka waxaan shacabka Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dawladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ugu horeyso qabyaaladda faqriga iyo argagixisnimada waa ognahay qabyaaladu waa aragti gaaban weey waa aqli hoose oo guracan waa tartan iyo tabasho u dhaxeeya jifooyinka oo wada dhashay ma aha wax ka tarjumi kara danaha qaranka ama la tartami kara qaran kale qabiilku ma aha wax qaran dhisa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dumiya oo waa u soo taagnin waana soo aragnay haddii qof aad qabiil ku doorato ama qabiil aad ku diido sidee aan ku gaarinaa dawlad hufan oo caalamka dawladahooda la tartama dhanka kale waxaan xisbiyada doonayaa inay ka qayb qaataan doorashadan aan kula dardaarmaya inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonida guud ee dalka mudanayaal iyo marwooyin waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsano hala kala aragtid wanaado laakiin in la is ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeena ahaa ama ahayd in la helo Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo taas in loo ahaato astaan qaran weey mudanayaal iyo marwooyin marka aan leenahay Soomaaliya oo nabad ah macnaheedu waxay tahay Soomaaliya oo barwaaqo ah Soomaaliya oo aan u tagnay kheyraadkeedii haddii ay tahay waxa la yiraahdo blue economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shidaal iyo waxay tahay hadday tahay kheyraadka waa haddii nabad la helo way haddii nabad la helo oo ay daba socotaa nabad inaan u tagno kheyraadkeena bariga oo hadday tahay macdana kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo Soomaaliya waa dal qani ah laakiin shuruudu waxay tahay in la helo nabad iyo dawlad ku hagta nabadaas yaa khasab ah Soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uusan soo dhexgelin Soomaaliya oo mid ah way iyo Soomaaliya xora oo danaheeda iyadu ee gaari
haddii aysan nabadeedu waxay tahay inaan ka shaqeyno nabadda inaan raadino in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan ula dagaalno inaan la dagaalano qabiilistayaasha dadka qabyaalada ku shaqaysta oo ummadda Soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliya maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda ma waxaan ka hadlaynaa soddon waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaan waxay muuqanayaan 30 sano ka bacdi ah ma hadda waxaan sameynayno ee waxa dhaxli doona caruurteena iyo kuwa ay sii dhalaan marka mas'uuliyadeenu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareyno mustaqbalka caruurteena iyo mustaqbalkooda waxa xaqiiqa ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay kamid ahaayeen weeraradii arxan darrada ahaa ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa kamid ahaa abaaro iyo fatahaado istaba jooga caqabadahaas waxaa kamid ahaa isbarbarya siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxay daba yaalaan Soomaaliya waa inay nabad hesho Soomaaliya waa inay mid tahay Soomaaliya waa inay madax banaan tahay go'aanadeeda madax banaanta haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay sameynayaan abaarahana naftigoodu waxa weey waa u diyaar garoobi karnaa maxaa yeelay dalkeenu dal biyo la'aan ma aha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama badda aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dowlad wanaagsan oo ka shaqaysan nabadaas waxa xaqiiqo ah in waqtiga abaaraha ah waqtiga roobka in la soo diyaarin karo waqtiga abaaraha ah oo biyahaas naga khasaara oo badda aada in biyo xireen loo sameeyo oo markii abaar timaado aanan ceelasha la aadin ay biyaha ay diyaar noogu yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudubnay wada shaqayn dulqaad iyo tanaasul dhexdeena ah dawladani idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan iraahdo waa dawladda shacabkeena waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala aragti duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka Soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idin qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mooshinka ma aydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dawladeennii aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni oo shacabka Soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dawladani waa dawladii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday waxaana ku soconaa konton iskuul aan soo celino sanadkan dhamaadkiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dawladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ka mas'uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin halka qof oo frimbiga haysta waa bixi kara hadduu rabo waa hal qof caruurta Soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna si kastaba ha ahaato weli waxa inoo haray safar dheer yaa noo haray dawladii 3 sano iyo 10 sano meesha rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay safarka oo fursad siiyay ra'iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummadeena u shaqeyno oo
aan shacabkeenna u shaqeyno. hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro. ummadda Soomaaliyeed yaad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro. walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan. waa arkaya qofka firimbiga hayo waqti ma hayo. waqtigii qadada raalli aad waqti qadada la joogaaye. walaal sanadkiiba haddii saddex bilood mar haddii lisu yimaado sanadkiiba haddii lisu yimaado in la isdhegaystaa wanaagsan. walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah, si aan u xaqiijinno higsigeenna qarannimo, waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada, dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuqa. tan iyo intii aad i doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isugu howlay inaan dhisno ama aan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay. annagoo ka shaqaynayna, annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino. waxaa alla mahadiisaa inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed. laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin. arrintaani iskama imaanin, waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiigooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd. sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka ah oo qorraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen. waxaan xaqiijinay in mushaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo asaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogto ah, oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda. taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeenna qalabka sida. waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeenna waxaan leenahay guulaysta. waxaad samayseen taariikh halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu ilaah yidhaahdo. oo higsigeennana muxuu yahay? Soomaaliya oo nabad ah, Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto, oo aanan ku shaqaynin shisheeye caqligiisa. waxaan shaki ku jirin in dibudhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan, runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo. laakiin waxaa alla mahadiisa ah inaan haddaan ku guulaysanay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh. guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaan amniga magaalada Muqdisho inkastoo aysan fara ka qodnayn weli. tusaale ahaan 3 bilood ee ugu horeysay ee sanadkii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambi, halka 3 bilood ee
ee ugu horreeyey ee sanadkii 2019 waxaa ka dhacay 74 fal dambi. sanadkan aan ku jirno 3 bilood ee ugu horreeyey waxaa ka dhacay 24 fal dambi. fari kama qodna ilaa aan geenna meel hoose hadduu ilaah yiraahdo. waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo idinku koow aad ka tihiin aan ku boorinayaa inaan si wada jira looga wada shaqeeyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ogeysiinta mudanayaal iyo marwooyin. waxaan waqti hore aan bilownay inaan dhisno ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgali kara dhammaan dalka qaybihiisa oo dhan. waxaan sidoo kale African Union, European Union iyo qaybaha kala duwan ee beesha caalamka kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas'uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow hadduu ilaah yiraahdo. waxaa la yiraahdaa transition plan yaa la yiraahdaa. waxaa arrintaani marka ay hirgasho noo suurtagelaysa kow in aan annagu qaadano mas'uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna. labo in aan la wareegno walaalaheena AMISOM oo maalin iyo habeen difaaca dhiigooda noo huray inaan kala wareegno hawsha. weliba inaan wadamada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aan isku filnaano hadduu ilaah yiraahdo si ujeedooyinkaas difaaca loo gaaro. waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay garab istaagaan. mudanayaal iyo marwooyin arrimaha dhaqaalaha waxaa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dawladdan jirtay aan wax badan ka qabanay dhinaca kobcinta dhaqaalaha. sidaas awgeed marka laga reebo ee gudaha kaas oo ay sabab u ahayd inaan la dagaalanno musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta dhaqaalaha. waxaan idin xaqiijinaynaa inaan si wada jira ama aan si wadi doono la dagaalanka musuqmaasuqa hadduu eebba yiraahdo. waxaan sidoo kale maragma doonta ah in hay-adaha lacagaha adduunka ee loo yaqaano IMF-ka iyo bangiga adduunka World Bankiga ay qoraaladoodii ugu dambeysay ay qireen in qaab xisaabeedka dawladdan uu yahay mid hufan oo daahfuran. taas oo noo sahashay in laga cafiyo deymahaas tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa in ka badan 50 sano. mudanayaal iyo marwooyin intaas oo idil waxaad ka ahdeen qayb maxaa yeelay xasiloonida dalka idinka iska lahaa. garsoora arrimaha garsoorku waa dhexaadka nolosha ummadda Soomaaliyeed ummad kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato. sidaas awgeed waxaan isbedel joogto ah aan ku wadnay hay-adihii garsoorka si aan u gaarno higsigeena qarannimo. waxaan bilownay inaan hay-adahaasi soo noolaysay kalsoonida ay gelinay imtixaano furan oo qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb gali karo si aan u xulanno garsoorayaal u carbisan aqoonna u leh shaqada loo igmaday. mudanayaal iyo marwooyin hawlahaas oo dhan waa bilow. mudanayaal iyo marwooyin waxaan ayana ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka qaranka. waxaan idiin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay-adaha kale ee dawliga ah in ay khusayso arrintan in kalfadhigan waqti badan la geliyo sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqan galiyaan. arrimaha dibadda dawladdu waxay muddadii ay shaqeynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam wada shaqeyn iyo isfahm. waxaan qayb horyaal ah ka noqonay
kusoo dhawaashaha iyo wada shaqaynta gobolka geeska Afrika si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale. waxaan sida la socotaan aan si dhow arrimaha geeska Afrika aan uga wada shaqeynaa dhammaan madaxda geeska Afrika in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin isugu samaynin aan isaga kaashano arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna looga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin cadeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqayn haddii noqoto dawladaha dariska ah in la iskaashado daris wanaag in lagu wada noolaado. waxaan ballan qaadaynaa in dhankeena arrintaasi aan ka shaqeyno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka galaynin qaranimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwooyin arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udub dhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso. waxaa caada ahaan jiray in la yiraahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta. waxaan shaki ku jirin annagoo ka duulayna mabaadi'daas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u igmanay qaybaha ka mid ah mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada. waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doono arrintaas hadduu Ilaahay yiraahdo si aan u xaqiijino doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo nooleynta qarannimada Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo kuwa doonaya dhiigga dhalinyarada inay jaranjara ay ka dhigtaan. waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yiraahdo ma liibaanaha lagu liibaano laguma liibaano. dhalinyaradu inay ka fogaadaan 30 sano oo khibrada ay leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiil baa la soo galiyay haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis. dhalinyarada Soomaaliyeed intuu waqti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dawladdii kala shaqeyn lahaydna waa annaga. mudanayaal iyo marwooyin shacabka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado badan oo aad u adag dagaal qabiil dagaal argagixisnimo abaaro iyo dadkii iyo dunyadii halakeeyay iyo wax la mid ah. wax kasta oo na soo maray waxaa alle mahadiisa inaan wali Soomaali ay taagan tahay inaan wali aan jirno insha Allah Soomaalina waa jiri doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada aan ka codsanayaa inay laabaan dadaalkooda ku aadan wada shaqaynta ee la leeyihiin dawladooda iyo ciidamadooda si aan uga gudubno masiibooyinkaas dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyeen ee dalkeena halakeeyay. waxaa sidoo kale ummadda Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay nagu taageeraan sidii loo heli lahaa dawladnimo Soomaaliyeed oo ka hufan qabyaaladda faqriga iyo argagixisnimada kuwaas oo ah saddexda cadow ee dilaaga u ah dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed oo aan doonayno in aan dib u soo yegleyno aan xoojino. mudanayaal iyo marwooyin waxaan si nasasho la'aan ah aan isugu day inaan kor u qaadno xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka xiriirkaasi oo ku dhisan
wada tashi iyo isfaham iyo in la xurmeeyo dastuurka kumeel gaarka ah ee qaranka dadaaladaasi waxay qayb ka ahaayeen sidii loo gaari lahaa higsiga guud ee dalkeenna iyo dalka Soomaaliyeed waxaa alla mahadiisa in aan guulo ka gaarnay dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada shacabkooda matala danaha shacabkoodana ka shaqeeya waxaan gaarsiinay dowlad goboleedyada gargaar caafimaad COVID-19 oo ah ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqaas inta tabarteenu ay tahay waxaan gaarsiinay dhaqaale gargaar ah kuwa musiibooyinka fatahaadaha iyo daadadku ay waxyeelayeen mudanayaal iyo marwooyin dadka Soomaaliyeed waa dad waalaah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadaladeennii wax kasta oo jirana aan ku dhamayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgarad gabagabadii gobolka Banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajeynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaara meel gaara iga taala oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed mar kale ومحسنتين مركله waxaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqaya inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuulada iyo xarumaha caafimaadka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dawladda ama wadooyinka dekadaha iyo tan hadda aad wadaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyin ka soo socda waxaana idinku dardargelinaya ama idinku dardaarmaya inaan ka difaacno dalkeena inaan diinteena aan difaacno ka difaacno argagixisada inaan ka difaacno qabyaalistayaasha ama qabyaalada inaan ka difaacno in aan la dagaalno faqriga waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idin furmay ama idin furan yahay kal fadhiga toddobaad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadku way fadhiyaan madaxweynaha un baa baxaya dadka kale oo dhan way